السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة واكدر ودب الدل وقرطوية السعودية العربية ووارن أجرت مدحوينها الصومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله لحال سوغاها وكل واقع إن دق لو سو قبطو سردونك السعودي وأرنتاسي ودقاقي ha iga degdegin muuqaalkan like si share garee meel fog gaarsii asxaabtaada gaarsii aad baad u mahadsan tahay faahfaahinta aniga ku siinaya ha iga degdegin ila lagu kalsoon yahay gaar ahaan warbaahinta dawladda dalka Turkiga ee afka dheer ee sida halkan ka muuqata TRT xabaar lagu magacaabo ama khabar ayaa waxa ay baahisay qodobo boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ku dhawaaqday kuwaasi oo la xiriira soo qabashada madaxweynaha Somaliland hadii markii hore wax walba ay wax iska caadi ahaayeen maanta adduunka wax caadi ma jiro madaxweyne gurigiisa hurda loo dhacay oo iska soo qabsaday tanina waa dhici kartaa ayay boqortooyada taagan tahay sababaha ay u cuskatayna waan ku soo gudbinayaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman iyo sirdoonka Sacuudiga ayaa tallaabo halisteeda leh haatan ku dhaqaaqaya aadna looga yaabay wuxuu sheegay inuu ka qaadayo tallaabadani madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro Sacuudigu wuxuu ku dhawaaqay tallaabo soo qabasho oo lagu qabanayo hogaamiyaha Somaliland wakaalada wararka ee Turkiga ee TRT khabar ayaa warkani shaacisay sida halkan ka muuqata qodobada la cuskaday ayaa hadaba halkan lagu baahiyay qodobka koowaad waxa la sheegay Ciro waxa uu ku lug yeeshay howlo ka dhana ammaanka qaranka boqortooyada Sacuudi Carabiya yaani waxa uu ka qayb galay shirar cadawga Sacuudigu ay yeesheen kaasi oo aan la garanayn sabab uu kaga qayb galay iyo waliba wax lagu soo qaaday iyo go'aanada markaasi laga soo saaray talamaad waxay tahay sultaanka Sacuudiga waxa uu ku howlan yahay sidii xilka looga tuuri lahaa xukuumadda Ciro oo soo faragashatay ammaanka qaranka Sacuudiga shirar ka dhacay Tel Aviv halkani waa sirdoonka Sacuudigu waxa ay ogaadeen shirar ka dhacay Tel Aviv October 5 2025 Janaayo 17 labadaba shirarkaas waxay ka dhaceen caasimadda Israa'iil madaxweyne Ciro waa joogay inkastoo midkan Janaayo aan la shaacin midka kalena aan la shaacin haddana sirdoonka Sacuudigu waa uu soo ogaaday xogtaas ayuu keenay shirarkaasi oo lagu tafatiray looga wada hadlay waxyaabo lid ku ah ammaanka gobolka iyo dalalka jaamacadda Carabta Sacuudigu wuxuu ku dhawaaqay in halis ammaan oo aad iyo aad u culus dalkiisana ku socota uu ka howlan yahay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro waxaanu xiriir la yeeshay kooxo iyo dawlado ka soo horjeeda boqortooyada Sacuudi Carabiya kooxo la mamnuucay ayuu la shiray oo la fariistay meelo ka mid ah dhulka khaliijka markii halkaas marayso horta aragtida qaybta commentiga noogu reeb warka aan ku sheegayo ma aha war aniga aan jeebkayga intaan kala soo baxay aan kula imid warka halkan uu ku qoran yahay waa warbaahin weyn oo almost 5 million people ay ku xiran yihiin oo warkani shaacisay banaanka keentay waxay cadeynaysaa TRT oo Turkiga laga leeyahay in dhammaan qodobadani ay sirdoonka iyo aqalka boqortooyadu ay isku raaceen maanta wixii ka dambeeyana arintaasi loo kaba gashan doono la isku raday doono sidii looga gungaari lahaa loogana hortagi lahaa qatarta ka soo jiijiila waqooyiga Soomaaliya waxyaabo meesha ku qoran waxa kamid ah bedelida xukuumadda Ciro ama maamulka Ciro oo yaa lagu bedelayaa Sacuudigu ma sheegin laakiin faragelin dhaba in la sameyn doono maadaama shirar dhacay October 2025 iyo Janaayo 17 2026 ka dhacay Tel Aviv uu ka qayb galay loogana hadlay waxyaabo lid ku ah ammaanka guud ee boqortooyada Sacuudi Carabiya maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa xoogan ee bambariska ee dhulka qoda ee Mareykanka ayaa hoganaya badaha ka agdhow dawladda dalka Iiraan hasaatee wax tallaabo ah waa qaadi kari la yihiin kadib markii hogaamiyaha dalka Iiraan Ayatollah Ali uu ku dhawaaqay qorshe weyn kaasi oo muujinaya sida aan maalinka maanta ee Iiraan loogu degdegi karin Erdogan waxa uu taageeray in dalalka ay madax banaanidooda wax kasta u sameeyaan
sidaa daraadeed waxa uu u sheegay Iran inuu garab taagan yahay qodobkaasna waa qodob dhow oo haatan soo baxay وهاجاك هل لايك يا هل سبسكرايب نوصي أدود ما صنت عرفتها قيبت كومنتيجا دولة الدلك إيران واحد سويديني سها إيران أنت صوب بلاد أيا الله بولو حفتين أيا بدأ هذا الصوفر يستي ولا دول يمين سكست أيا لو قورتي وإحنا ولا سمين لايه حاجة وحكي قلدين نتنياهو أنت إيران لورد عرنا يلا بمر أيوم رأيكن كتري هالكاسي ويسكدي إنه نقاجيو هالقل كلبو قاضي يطهران حاجة وحكي قلدين مركب وياي warbaahinta Middle East oo inta badan soo faagta xogaha ugu waaweyn ee qarsoon ee bariga dhexe ayaa warkani ka soo xigan doona waxay leedahay qorshayaal halis ah isla markaasna Trump iyo Netanyahu labadaba ay ku qanceen oo loo degay dawladda dalka Iran ayaa gabi ahaanba waxa ay noqdeen kuwa socon waaya kuwa talaabsan waaya marka la fiiriyo awoodda qorshayaashaasi ay markaasi lahaayeen iyo sida ay u dhicisoobeen waxa ay arintani la yaab iyo ama ka ku noqotay Trump iyo Netanyahu qorshayaasha la soo jeediyay ee ahaa in Khamenei la soo qabto waa dhicisoobay qorshayaasha waxa kamid ahaa in loo dhaco xarumaha sirdoonka ee Iran oo la burburiyo xogahana laga soo qaato waa dhicisoobay qorshayaasha waxa kamid ahaa in internetyo free dadka loo geeyo si xogo sirdoon ah looga helo gudaha dalka Iran waa dhicisoobeen oo internetyada inta la qabtay waa dharaar cad lagu gubay maxay marka wax u dhaqaaqi laayeen hadii xoog lagu dayi karo maraakiibtu waa dul taagan yihiin maxaa dhacay su'aashaas la isweydiinay hadaba su'aashaas ana kaaga jawaabay Iran markii ugu horeysay si ka duwan dagaalkii la soo dhaafay ee 2025kii bilowgiisii dhacay Iran waxa ay diyaarisay qorshayaal waaweyn hub casriya qalab military hore loo arag raadaaro gantaalo ayay diyaarisay Iran waxay diyaarisay hujuum ka duwan kii ay kala hortagtay Israa'iil sanadkii hore waxa la sheegay in diyaarada 500 lagu weerarayay Tel Aviv 500na 300 oo kamid ah raadaarada difaaca ama qalabka difaaca ee Mareykanku uu geeyay Tel Aviv ay qabanayeen laakiin sanadkani 500,000 ayaa lagu daray oo 1,500 oo gantaal iyo drone ah ayaa hal mar la fasaxaya waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah in baadi goob loo galay bal meesha ay ku jiraan gantaaladani 1,500 iyo diyaaradaha drone ah ee laga soo fasaxayo afafkooda iyo dhuumaha ay ka soo baxayaan si kasta oo la isugu dayay waa la soo waayay Iran waxa ay leedahay oo sirdoonka Mareykanka uu og yahay in arintaasi ay dhab tahay oo mar allaale iyo maalinka hal xabba lagu soo tuuro Iran ay Tel Aviv noqon doonto habeenka koowaadba mid baabada qorshayaasha marka laga baaqsanayo oo loogu dhici laayahay waa burburinta Tel Aviv oo priority-ga ay siinayso Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran waxa kale oo kamid ah attacka weerarada cyberka ama internetka sidaan ognahay wasiiradii taliyaashii ciidamada xubnihii hoose xildhibaanada ee Israa'iiliyiinta dhamaantood teleefoonadoodii waxa la wareegay dad telefoonada dhaca ama jabsada oo Iiraaniyiin xogihii oo dhan waa la hayaa marka Israa'iil markuu ay leedahay anagu waxba nooma dhowrsana oo khadadkeennii loo soo dhacay hadii anagu aan dadka markaasi aan wax blackmail la yiraahdo aan ku sameyn jirnay maanta wax naga daranana haysta annaga yaa yaabanay leeyihiin sidaas daraadeed maalinka maanta ma degdegi karno weerarku ma degdegi karno oo wixii la isku sheegay oo lagu ballamo lagu showri dhamaanba waxa haysta sirdoonka iyo hackeriska ee Iiraaniyiinta marka qoladii hadalka hadaan isku soo duubo waxa la dheelay shax ay fahmi karaan wixii iyagu ay dheelayeen ayaa la dheelay sidaa daraadeed dagaalkani ma noqon doono mid lagu degdego Trump oo xitaa rabay in faylasha Epstein uu isaga bariyeelo oo buuq iyo tashwiish uu ku furo oo weerar uu ku qaado Iran Netanyahu yaa gacanta qabto nabadoon noqday ma aamini kartaa waxaan ugu weerarayno yiri subbal waxa islaama hayne hadaa weerartay annaga dhamaanayne markaysa marka qoladii xaaladu waa ku xuntahay qodobkaasna intaas